kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socota ee halkani waa ILS TV oo alaabaan idin ka soo gudbina barnaamijyo kala duwan caawisnimadan caawa barnaamijyada ILS TV aan idin ku haynana waxa ka mid noqon doona kulan ay isugu yimaadeen haweenka ogaadeen ee magaalada Edmonton iyo waraysi dhinacyo badan taabanaya oo aanu la yeelanay gudoomiyaha xarunta dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen waxaana meesha ka maqnaan doonin kaalimihii suugaanta kolba inta waqtigu inoo saamaxo marka hore say ku soo dhawaada warkii caalamka wararka naga soo gaaraya xarunta dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa waxa ay sheegayaan dil iyo waliba tacadiyo iyo gaboodfal kala duwan oo ciidamada gumaysiga Itoobiya ay kula kaceen maalmihii la soo dhaafay dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolada kala duwan ee wadanka ogaadeen warbixintan ee xarunta dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen naga soo gaadhay ayaa waxa ay sheegaysaa in ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo maleeshiyaadka la shaqeeya ay toddobaadyadii la soo dhaafay ilaa iyo maalinimadii ugu dambeysay ee shalay ahayd ay si laba jibaareen xadgudubka iyo waliba gaboodfalada ay kula hayaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer ogaadeen sida ay sheegaysa warbixinta naga soo gaadhay xarunta dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen deegaanka Baka oo hoostaga degmada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarareed waxa halkaasi lagu dhacay laguna xidhay 13 qof oo laga boobay dukaamada iyo waliba wixii hanti ay haysteen ee kale dadkaasi tirada badan ayaa waxa magacyadoodu ay naga soo gaadheen 3 ruux oo kaliya iyo waliba hantidii laga dhacay waxayna kala yihiin dadkaasi Cabdi Maxamed oo laga dhacay lacag gaaraysa 60,000 oo bir Ahmed Daahir oo isna laga dhacay lacag ka badan 50,000 oo bir iyo waliba ilma aadan Sheekh Yuusuf oo iyagana laga dhacay lacag 4,000 oo birta dalkaasi Itoobiya 19 isla bishan saddexaad degmada Dhagaxbuur waxa lagu xirxiray dad fara badan waxaana aan magacyadooda helay dadka kala هادي عرب جولاد ضيب إسماعيل أولاد يولبا خضر شمس الدين sidoo kale ciidamada nacabka ah ee gumaysiga Itoobiya ayaa 19 isla bishani saddexaad waxay deegaanka sallaxaad ee degmada Qabri Dahare ee xarunta gobolka Qoraxay ku dileen Rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye nin lagu magacaabi jiray Faarax Golongol 22 bishani saddexaad oo ah maalinnimadii shalay ahayd sidoo kale waxay ciidamada nacabka ah ee gumaysiga Itoobiya ku dileen degmada sallaxaad ee gobolka Nogbeed Xamdi Taajir Xuseen iyo Xasan Macallin Cabdi ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo kooxaha qowleysatada ah ee la shaqeeya ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxa ay si laba jibaareen xadgudubka iyo xasuuqyada joogtada ah ay ku hayaan dadka birimageydada ah ee ku dhaqan guud ahaanba gobolada kala duwan ee wadanka ogaadeen wararka naga soo gaaraya isla xarunta dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa waxa ay ka warbixinayaan roobab si weyn loogu diirsaday oo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay si isdaba joog uga da'ay gobolada kala duwan ee wadanka ogaadeen warka xarunta dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen naga soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in roobkii xilliga guga uu ka curtay gobolada kala duwan ee wadanka ogaadeen gaar ahaan gobolada Faafan Nogob Jarar Doolo Qoraxay iyo waliba gobolka Shabeelle ee wadanka ogaadeen dhinaca kale gobolka Doolo Qoraxay Jarar iyo waliba gobolka Shabeelle ayaa iyagana waxa ka daay roobab mahiigana oo si weyn ay ugu diirsadeen dad iyo dunyaba waxaana Rabbi uu ka fiiday qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wadanka ogaadeen abaartii darayd ee muddada sanadka iyo siyaadada soo jiitamaysay taasi oo aanay helin shacabka ogaadeen wax uga gurmada xanuunka shuban biyoodka ayaa sidoo kale waxa uu ka jiray guud ahaanba gobolada kala duwan ee wadanka ogaadeen waxaana xanuunkaasi sababay sida ay sheegayaan xogaha aanu helay abaarta daba dheeraatay ee ku habsatay gobolada kala duwan ee dalka ogaadeen roobkani xilliga guga oo si weyn ay u sugayeen qaybaha kala duwan ee dadka ku dhaqan wadanka ogaadeen ayaa si weyn ay ugu diirsadeen waxayna alla uga mahadnaqeen raxmaadka iyo naxariista uu ugu deeqay xilli ay aad ugu baahan yihiin
roobkani xilliga guga ayaa sidoo kale waxa uu ka curtay gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada waqooyi iyo waliba gobolada bari ee dalka Soomaaliya kuwaas oo iyagana ay ka jirtay abaar baahsan oo dad iyo dunyaba naafisay meelaha sida weyn uu uga daay roobka xilliga guga dhinaca dalka Soomaaliya waxa kamid ah gobolka Sanaaga Sool iyo waliba gobolka Togdheer waxaana warku uu sheegayaa in haatan roobku uu ku sifidayo dhinaca iyo gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya isla wararkii wadanka ogaadeenaya ayaynu ku guda jiraa ee qaramada midoobay ayaa waxa markii ugu horeysay ay warbixin ka soo saartay xaaladda abaareed ee wadanka ogaadeenaya ka jirtay muddada dheer taasi oo dad iyo dunyaba halakaysay warbixinta qaramada midoobay ay ka soo saartay abaarta wadanka ogaadeenaya waxa inoo soo koobaya wariye Maxamuud Sheekh Cali warbixinta ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dalka ogaadeenaya ay ka jirto abaar aad u daran warbixintan ayaa imaanaysa iyadoo dhowr jeer booqashooyin kala duwan ay magaalada Jigjiga ku tageen saraakiil ka socota hay'adda qaramada midoobay wafdi ka socda hay'adda OCHA ee gargaarka u qaabilsan qaramada midoobay ayaa horaantii bishii ina dhaaftay ee February waxay booqasho ku tageen deegaano kala duwan oo kamid ah dalka Ogaadiniya warbixinta hay'adda WFP ee qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ayaa lagu sheegay in dalka Ogaadiniya ay ka jirto abaar aad u daran taas oo ay sheegeen in haddii si degdeg ah wax looga qaban ay isku bedeli karto macaluul galaafata nolosha dad aad u fara badan sidoo kale warbixinta ayaa lagu sheegay in dalka Ogaadiniya deegaano badan oo kamid ah uu ka dilaacay cudurka daacun caloolaha kaasi oo galaaftay nolosha dad aad u fara badan iyadoo ay la jiifaan boqolaal kale oo shacab ah cudurkaasi warbixintan ayaa imaanaysa xilli gumaysiga Itoobiya ay beesha caalamka u sheegeen in dalka Ogaadiniya uusan ka jirin wax loogu yeero cudurka daacunka waxayna warbixintani dhabarjab ku noqonaysa beeninaysaana warbixinada kala duwan ee saraakiisha gumaysiga Itoobiya ay warbaahinta la wadaageen kuwaas ay ku sheegeen in dalka Ogaadiniya ay ka jirto abaar kaliya warbixinta qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in heerka abaarta ee ka jira dalka Ogaadiniya uu yahay mid aad u sareeya loona baahan yahay in gargaar degdeg ah lala soo gaaro shacabka Ogaadiniya inta badan xukuumadda gumaysiga Itoobiya ma ogola in hay'adaha caalamku ay booqdaan deegaanada ka fogfog magaalada Jigjiga halkaas oo ay abaartu saameyn xooggan ku yeelatay qaramada midoobay ayaa codsatay in gargaar degdeg ah lala soo gaaro shacabka tabaalaysan ee reer Ogaadiniya mahadsanid Maxamuud Sheekh Cali wararka naga soo gaaraya gobolka Jarar ee wadanka Ogaadeeniyana waxa ay sheegayaan in xeradii ciidamada wayanaha ee degmada Araarso oo dab qabsaday kadib iska horimaad dhex maray shacabka magaalada Araarso iyo ciidamada nacabka ah ee gumaysiga Itoobiya warku waxa uu sheegayaa in dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada Araarso ay ka dhidhiyeen boob ay